watay waxay ka dhacayaan magaalada Boorame taasi oo sababtay in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayay xilli ay booqanayeen halkaasi lagu dhagxiyo oo ay ciidan rasaas nool uga jawaabaan dhaawac iyo dhimasho fara badan ayaa ka dhacday Boorame waxa hardankaasi oo dhami uu ku wajahan yahay doorashooyinka Sayla waxa la sheegayaa in uu jiro qorshe isku xiraya beeraha Ciise iyo Isaaq kuwaas oo doonaya in gacanta loo geliyo Sayla beesha Ciise taasina waxay daba taalaa sida la sheegay wada hadal dhex maray madaxweynaha Djibouti iyo kan Somaliland haddaba barnaamijkaasi ayaynu qaadaa dhigaynaa qadka telefoonka waxaa ku jira milyuun meecaad allaale oo joogto magaalada London iyo cibaada Xuseen Axmed oo joogto magaalada Ottawa ee dalka Canada kusoo dhawaada barnaamijka labadiinaba wandowna cali su'aad baad ma santaa aan ku hormaray milyuun rabshada ka dhacay Boorame rabshaduna waxay daaran yihiin Sayla doorashooyinkooda dad waa la dilay dadna way dhaawacmeen arrimaha dhacaya haddii aad ka hormarto bal dadka ku dhageysanaya u soo koob sidee wax u jiraan bismillahir rahmaanir rahiim horta daahiro aad baad mahadsantahay walaal laakiin arrimaha ka dhacay Boorame maanta maaha kuwa cidna loo bandhigayo qof wal oo ibni aadan oo ilaahay damiir ku abuuray buu arkayaa waa arrin cad oo dulmi cad oo mar hore sheeko lagu heshiiyey taasina samaroonka kamay maqnayn kamayna daahnayn laakiin waa loo maldahay SNM waxa la yiraahdaa jirtay oo gobolada awdal ay ka kooban dadka samaroonku degaan duulimaad ku ahayd oo la dagaalamaysay magaca iyagu markaa ku bixinay waan dagaalamaynaa markay lahaayeenna waxaan ka soo horjeednaa bay lahayn dawladda Siyaad Barre laakiin waligood lama dagaalamin dawladda Siyaad Barre waxay la dagaalami jireen samaroonka reerka la yiraahdo oo waligood duulimaad ku ahaayeen taa waxa u daliila waxay ka soo galeen geestiir meel la yiraahdo iyagoo iskarabsanaya labada beelood ee imika Ciise iyo Isaaq la yiraahdo annagu se markaa waxaan u naqaanay esta didig iyo esta lab ala kulli xaal heshiiskoogii oo socda dawladii Siyaad Barre way dhacday Allahu naxariisto maxamed faarax aydi jabhadiisi baa burburisay sidii bay jaanis ku heleen ay wadanka ku soo galeen dadkii beelihii meesha wada deganaa aan heshiina baa la yiri waa la isku yimid markay heshiin kari waayeen reer awdal baa heshiisiyay oo heshiiskoogii sal u dhigay maxamed xaaji ibraahim cigaal ninkii loo dhanay Allah u naxariistee waxyaabo badan buu iyaga kaga duwanaa laakiin qoladan imika qabsatay waa SNMT oo cad oo baysan programkii ay markay ka soo dagaalamayeen Ethiopia ay wateen ayay la soo bixeen oo pure nin idiloo weyn baa wuxuu afkiisa kaga sheegaya reerkan baa noo soo galay abaal qofka abaalka ku soo gala reerkaaga looga abaal celiyaa oo laga martiyaa laakiin ma qof xaq nin kale leeyahay baa loogu abaal gudaa waxyaabaha dadkii ka yaabisay ka careysay horta waa taa wax doorasho la yiraahdo ka dhacay meesha inkastoo anigu aaminsanayn oo ahay reer Awdal State hase yeeshee systemkii markaa dadka meesha jooga loo dhigay ayay kamid ahayd rag baa ku soo baxay raggii u dhashay gobolka Awdal ah degmada Sayla sideedaba waa caasimadii qadiimigii ee dadka reer Awdal wax magaalada Boorame la yiraahdo ayaa imka caasimada laakiin Boorame waxay ka dhalatay Sayla iyo Gabiley labada caasimadood ee originalka reer Awdal ay lahaayeen Gabiley iyo Sayla bay ahayd tii maanta labadiiba waxa la doonay laba reer oo hareeraha nagaga xigay inuu mid yiraahdo waan maroosanaya iyadoo ay samaroonku u arkeen inay wax dhici karin tahay iyaanan hadalka kugu badinin daahiro systemkii meesha doorashada siday sheegayeen dadkii deegaanka lahaa baa ku soo baxay kuna guuleystay intii hore dadka hore haysteen ama xaqdaraha ku haystaan ama xaqe iska sugayay si cad oo aan gabasho lahayn ayaa waxa loogu amar geliyay oo la rabaa in waliba loogu bushkareeyo inay u celiyaan kursiga qoladaas siiyaan marka micnaheedu ma fahmin dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay Boorame taasa keentay haddii aanan laga tanaasulina waxyaabo fara badan oo kale ayaa ka soo socda waayahay milyuunay hadda maxaa beesha gudubkiisa ama samaroon u tala horta talo nin la tumay tala gaadhay bay Soomaalidu hore u tiri maanta beesha samaroon siday u dhantay mowqif qura ay ka taagan tahay waxyaabo badan oo annaga noo muuqday run ahaantii dadka ku dhex jira guduhuna ay iska indha tiri jireen baa maanta u muuqday Soomaalidu waxay tiraahdaa gudaha imaad goysayna barkay baa kugu jira haddaanan loo sacabatumin
oo iyagoo dadkayagii laayay oo dulmi mar kastan iskugu kaayo garabsaday oo Ethiopia noo soo kaxaysay markay waxba naga qaadi kari waayeen labadoodoo isla socda gobolka Awdal baan ku noolaa from bilow ilaa dhamaad waan joogay way isku kaayo garabsadeen dawlad siyaabare lamay dagaalamayn dadka Samaroonka xoolo dhaqatada buuraleyda iyo beeraleyda la dagaalamayeen waxba way ka qaadi waayeen gobolka Awdal bay nagu soo weerarayeen idina xadka uma dhaafin at that time markay sinaba ku soo gali karaan waxay soo kaxayseen Ethiopia ama been haw sheegan ama waligood bareer daba la wareeg baa la oran jiray dabada hawla tagaan Ethiopia oo taangiyadeedii iyo ciidankeedii hubkeedii wadataan soo gashay way dileen intii Ilaahay saacadooda soo dhameeyay laakiin gacan xaq darro ugu talagalay inay ku dhimatay Ilaahay way ku dhimatay mid aan iloobi karaynana maaha mid naga go'dayna maaha sababtoo ah waa gardarro cad bay hayd oo nala soo doontay waqtigeedayna sugaysaa aargudashadu waya kuma qanacsana daahir dadkani istil kuma qanacsana dad Ilaahay abuuray oo Ilaahay u siciid yahay ayay rabaan noloshooda duulimaad ku inay baabiyaan ama dadka ka kaxeeyaan meel ay ku wadaan iyo meel ay u kaxaynayaan anigu ma garanayo laakiin waxa ka go'an oo imika ay ka soo ifbaxday uurkooda ka soo boodbooday sida ninka idila weyna dhagar qabihii afkiisa ka lahaa inay dadkan ku maqan yihiin oo ku dhagaraysan yihiin dhulkooda laakiin mid yar baan ka oran lahaa taa way arli masal guurto badana sacaba laguma dhulo ee ninkii sama seef ka doortaa ma sabata baxo aburiinada ardaaguriyada uun horaa degay isbaka aguug adna soo ogow maxay ku dhamaan kartaa arrintaani kula tahay wallahi sidii Ilaahay ka dhiga horta ku dhamaanaysaa oo qof qaybka ogoo ka sheekayni kara ma jirto wax walba oo maqan Ilaahay baan u daynaynaa ma fahmaysaa laakiin saadaasha anigu aan qabo sida ay ku dhamaanayso qof uma malaynayo qof dambe oo Samaroon Soomaaliland sacabtumay inuu jiro dee qofkii dhiig la Ilaahay dhiig ku abuuray ma laga yaabaa in sida ay rabaan loo raaco oo wax laga bedelo arrinta sayla wallahi anu daahirow siday rabaan marka loo raacayo ninka maanta ku yidhi dhulkaaga duhur cadkeen oo si ninka ama ha yidhaahdo igu marti ama sharaf igu sii ama ka tanaasul bari wuxuu ku oranaya ilmahaaga iyo naagtaadaba isii oo aqalkaaga iga soo baxa laakiin Emilyon haska inta tirin qorshaha waxa wada dawladdan baa wado Djibouti war daahir anigu dawladu ma aqaana jabhadan hubaysan ee aqalka Morgan degan de jabhad hubaysan nin waliba uu leeyahay dawladda wadahan ku sheegay waa dawlad Djibouti Ismaaciil Umar Geela sheegaysa horta ninkan Ismaaciil Umar Geela la yiraahdo anigu in fact ma jecli inaan aflagaadeeyo oo isirkii dhalay baan ka soo jeedaa laakiin in Gadabuursi halka uu ka taagan yahay iyo gumaadka uu ku wado ilaa maalintii uu kursiga fadhiistay waa mid aan la tirin karin oo la xisaabin karin intuu nin u dhaadhiciyay aakhiro iyo intuu nin la tiro dabad ka galiyay iyo intuu nin jeel ku hubsaday horta tira ma laha waya Gadabuursigu magaalada Sugdairo Gadabuursigu magaalada Djibouti iyaga iska lahaa deegaanka Djibouti iyo xeebta Djibouti ba iyaga lahaa kursiga uu maanta ku fadhiyo Ismaaciil Umar Geele Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa u xaqle waa kursigii Saylici ku fadhiyi lahaa maxaa yeelay xaaji duudu ha ninkii gaalka ka saxeexay wadanka saaxir Soomaal kaga saxeexay xaaji jaamac Saylici buu ahaa ninkii u dambeeyay senatorka u dambeeyay ka Faransiiska Soomaalinimo ayaa wadanka oo Faransiiska kaga tirtiray Samaroon hase yeeshee nambarka 3 bayba kaga jireen 18 kursi bay ku leeyihiin dawladda Djibouti Samaroonku maanta 3 bay ku leeyihiin 15 kale Ismaaciil Umar Geele ku maqayn isna wis og yahay diriteerkii u dambeeyay daraad soo dhaadhiyay yaani nin la yiraahdo waan ka tirtiraya halkan ka dhameynay marka si aanan Djibouti maranka u galin oo Samaroon uga fogeysa Sayla iyo Lughayana ku maran buu isir garaadkiisa ninkan xadka Ethiopia ka soo talaabay waa nin Ethiopia ka yimid xaq uma laha Djibouti kumu dhalan dhammaantoodna waxa Djibouti sheeganay dhulka 1977 ba dhalashada Djibouti qaateen dhulka dadkii u lahaa way u maqan yihiin Ismaaciil Umar Geele godobtu Samaroon ka galayna hadii isaga laga goyn waayo ilmuhu si dhala laga goyn tul lagaga tagaya maaha waayahay inta aad wax ogtahay hadda ka war caruurtii ku dhaawacantay rafin shalay
والله maalin kasta oo halka rabshadeeri ka dhacdaba mooryaantani halkan joogtay dhagar qabayaashu waa dad dhagaraysan oo dhiig islaam siday u soo cabeenay dad uu soo leeynayeen tuuta loo galiye boorma maalintay tagaanba ina shabaabay dilaan Allah u naxariisto inankii yaraaye musabiixii in ahaaninki ku baaqayay in abaalkii Djibouti la gudo ayaa maanta muuli joogo oo abaalka Djibouti abaalka Djibouti la gudayo hadii Djibouti abaal loo gudayo de ha u gudaano cidina uma diidana ninkii abaal ku soo galay waa loo gudaa laakiin anu abaalka ay soo galeen baanan garanaynba nala dagaalamo Gadabursi nala laayay yiraahdeen iyaguna safarka iyaga ay leen jireen wadada Cali Sabiix u joogsan jireen xadka Itoobiya ciise safar la isbaanu naqaano safar ku leen jiray nin intuu soo hagaago kuma soo dhicino qoriyo rasaasu lama imanayne safarkay gowrici jireen Gadabursi way isku garabsadeen abaalka uu soo galayna waa dhiigii Gadabursiga cidina ma mooga naxasnimadiisa markaas uu maantana ku sii cadeeyay uu yiri abaal bay noo galeen nacam Gadabursi markii hore soo gowracay waa inaan nimkana dhulkooga uga qaadna tii markaa la isku raacayna dhulkaan kala qaysanahay laakiin oo intii baroortuba orgiga way ka weyntaan Daahiro ayuuna maslada maamulka Siilaanyo wuxuu tijaabiyay beesha Samaroonka oo waxyaabo badan la tijaabiyay oo aad qaateen waxba mu tijaabin tiraayo waxba mu tijaabin waxba kama aanan qaadan meesha waxa fadhi jiray nin dadka siyaasadana uga xeel dheeraa ugana waay aragsanay nin in xajibaan cigaal leeyahay dadka Soomaaliland way amuuro dadku hasin maano dadku waan wada simay inkastoo siyaasad qabo ku dilay Samaroonka uu yiri marka uu fiirsado halkay ka noolin raawda leeyahay dikad saylac buu xiray haddana uu fiirsaday dad Ilaahay loo shaqaysanayo waligoodba xoogooga maan cid kale ku tashan bayaan halkay ka noolin budadana hay'adihii buu ka kaxeeyay gobolka cuna qabatayn buu ku hayay Maxamed Xajibaan Cumgaal Allah u naxariistee ha ku haya cuna qabatayna daarad ay ku soo xagaabaxaan Ismaaciil Umar Geeliya xaafadiisu uma ogolayn nin walba intiisa la sheegaa dul ay ku leeyihiin dhulkan oo sheeganayaan uma ogolayn dadka yaqaanee degana wuu yaqaanay laakiin odaygan imika meesha fadhiyay aqligiiba uu ka guuro waxba ma kala garanaya afar dib jiro ag jooga oo laaluushka sida loo cuno yaqaanana uu ku shaqaystaa de taasna xabad baa lagu kala hagaagi hadii hadal waxba la iska maqli waa siday doonaan bareer awdalo hadlaan nin iska dhagatiro iska inda tira buu noqday odaygani waxa markaan u fiirsaday qofka ibni aadanku hadaan u dhagaxayna ma geedahayn humanka Ilaahay abuuray haduu diin iyo iimaan leeyahay iyo haduu gaal yahay labadaba wuu qiimeeyaa qofka la hadlaya waxa lagu hadlayana jawaab ka soo cishaa kama soo cishaba waaba xabaal qabuurtu dadka lama hadasho waaba qabuur hase yeeshee wuxuu wajac ku dhigay go'aan buu iska soo qaadanaa xisle ku fuliya laakiin sidii ma ahaan oran lahaa maanta ugu dambeyn milyan maxaad shacabka beeshaad ka soo jeedo ugu baaqaysaa mareer awdal ha maanta reer awdal horta baaqiga ma baahna bareed cad oo loola tagay bay arkayaan nin kasta oo reer awdala oo meeshan jabhadani mooryaanta beesha dhexe ku jira ama sarkaalaada ama askar dable inuu ka soo baxo gobolkiisa ku xiroodo ayaan ugu baaqaya dagaalna inay u diyaar garoobaan oo dhulkooga dhacsadaan waayahay xaq buu nagu leeyahay Ilaahay baa nagu beeray Ilaahay baa nagu abuuray Ilaahay baa nagu sharfay Ilaahay baa na siiyay difaaciisuna iyagu saaran yahay ragga Samaroonka wayna difaacayaan kuwa aan ogahay aan ka dhashay anoonan isfaaninayn way difaacayaan maalinta xanuunku taabto una taabtay waayahay taasina waxay ahayd Milyuun Micaad Allaale oo qadka telefoonka ugu warramay idaacadda waaga cusub ee joogto magaalada London ee dalka Ingiriiska maasanid